oo dadka isjecel kala geeya dadka isjecel kala geeyo isku dira waa shaqadii sixirka waa shaqadii shaytaanka dadka isjecel in la isnacbaysiyo ka shaqeey dadka aan dambiga lahayna xumaan u raadiya oo mashaqo u raadiya ama mid isagu uu galay buu dusha ka saari ama waxyaalo kale intuu soo raadiyo been abuurto ama dad ka soo qaado dusha ka saari dadkaasi waa ummadda kuwa ugu shar badan buu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu alayhi shiraaru ummati ummadayda shiraartooda shar wadayaashooda waa kuwaasuu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu alayhi imisa dhiig daatay war la gudbiyay darteed imisa guriye ku burburay war la gudbiyay darteed imisa ummadii isugu dhacday war la gudbiyay daraadeed waxaad ku talagalaysa kelimada ka soo baxday qiyaasta fasaadka ka dhashay ayaa dambigeedii xisaabteeda leedahay ay kula fududahay adiga markaad leedahay markaad sheegayso laakiin waxa ka dhashay dhiiga ku daatay ummadda isku nacday burburka ka dhashay masaa'ibta ka dhalatay adiga xambaarsanaya maxaa yeelay musabbibat aadam labadii wiile uu dhalay isdilay sida quraanku sheegay kii gacanta lahaayee dilka sameeyay ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso ruux kasto xaq darro lagu dilo dambigiisa ka dilka sameeyay dambigiisa in la eg buu isagu dhaleeyay maxaa yeelay kaana awwala man sanna alqatla dilka ibni aadamku inuu isdilo ninkii ugu horeeyay jideeyay buu jidka wixii mar oo dhan dunuubtooda dhan buu urursan ayaguna way qaadanayaan ninkii xumaan iyo fasaad ka shaqeeya fasaadkaas wixii ka sii dhasha isaga iskale saas daraadeed baa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi buu aad u adkayn oo arinta iyada ah bedelkii dadka aad warxun u kala qaadi lahayd isu soo jiid oo xataa waxa la ogolaaday been isticmaal beentu waa xaraam waan dunuubta waaweyn bay ka mid laakiin marka dadka doonayso inaad isu soo jiidood isjeclaysiiso oo nacaybka dhexdooda abiiso been inaad u kala gudbiso si aad u heshiisiiso waa la ogolaaday ilaa meesha la gaarsiiyo u fiirso sidaas daraadeed waxa laga maarmaana in lagu baraarugo wararkan faraha badan ee sida fudud loo naqlinayo waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima ruux ba hal kelimada ku hadlay kelimada markuu ka hadlay ka soo baxaysa muusan u fiirsanay kama fiirsanay isma lahayn meesha ay gaadhay bay gaari doontaa halka kelimo ee uusan ka fiirsanin oo dhici karta inay kaftan uga soo baxday ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala cadadiisa ayuu ku helayaa ilaa qiyaam as-saa'a riwaayo kale naarta ayuu kelimadaas sababteed ku hoobanaya 70 sano ayuu naarta hoos ugu sii hoobanaya halka kelimo darteed hal kelimo oo kula cuslayn oodan ka baaraan degin oo si fudud kaaga soo baxday oo dhici karta inaad ku kaftantay waa waxa dhici karaysa 7 sano inaad naarta jahannam hoos u gasho arabkani ma sahlana ninka isku siidaayayna oo faraha ka qaaday iska qabanin oo ilaalinina halaagiisu waa xatmi inuu halaag sameeyo adduunyo aakhiraba